حصيا ما أنت نافذة دونك كل عالم شرعي حسين لكن ما أنت حسنا وأنا فرصة قالية كسوق قبل waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha ka soo qayb xafladan madaxda gobolka salaadiinta waxgaradka oqaasha iyo dhammaan naafada ila midka waxaan u salaamayaa salaanta salaamka salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kulli maanta dee waxaan isugu nimid halkan dad badan oo naafa qaar dhigala qaar agala magaranaysa qaar kulli nagu jirma filay laakiinse dee waxaan metelna dad badan oo naafa oo isugu iman kara gobolkan Togdheer marka xaflayaan hore looga dhigi jiray gobolka Togdheer laakiin inaga ugu horeeyna waxaan insha Allah waxaan kala jeedinaa in noqoto xaflad qiimo gala oo insha Allah inta dee nafti nagu jirto socota sanad walba aynu ka dhigno gobolka marka ururka xafladda soo qaban gaabay waxa la dhahaa Togdheer Handicap Organization ururka naafada gobolka Togdheer ururkan baahiyo badan ayuu kulli dadka bulshada ka soo ururiyay dad badan ee jira gobolka Togdheer naafada ku baahaysan oo aan helin waxyaabaha bulshada ay ka mid yihiin sida waxbarashada caafimaadka waxyaabo badan oo bulshada ka mid yihiin aan helin ayaa jira kulli waxaan baaqu direynaa madaxda maamulka gobolka iyo dawladda Soomaaliland ee dadka naafada gobolka Togdheer si wax ugu qabato oo u maalgeliso si ay u helaan waxbarasho iyo caafimaad ahna iskuulo iyo dugsiyo center laga xukumo si ay u helaan shaqo u sameeyso dadka naafada كل ديس براسة كل نوع شيء عروتين دجال مقراصة أنت بدن كسر شقينا متوعني ماذا يوم معلمين تنسوا شقينا أي كل سيف علمك هول ميل وسوي مرة شو دي ويوم كسكول يا الله أساسي مركامل في عمل مرتون ومهل علينا يعني تذكر دجال أنا فضا وحقبتان سوي مهل علينا وحاولنا هاي وكم تنتين هوشا قلتين waxaan baa ku dirinaa bulshooyinka Soomaaliland gudiyada dibadba inay ogaadaan dadka naafada siiba dadka gobolka Togdheer oo aan haysan hayn dad magaraasay aan jirin bal loo aqoonsiyo inay jirinba magaraas waayo maalin qura xus la sameeyo ma jirto ama wax qura loo magacaabo ma jirto leeyahay dadkaas waa dadka naafada gobolka Togdheer ba hawsha iska leh imika hay'adaha waxaan leenahay kulli iskuulo badan ay sameeyaan magaraasay qaar baa riyo ku xiroodaan oo cid ba gashay lahayn magaraas waxaan ku codsanahay waxaan ka codsanahay inay sameeyaan iskuul naafadu ay leedahay oo jira oo magaraas gobolka Iraan kaas ay naafadu leedahay wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waana salaamaya oo maatintii magacayga waxa la Cali Umar Maxamed waxaan ka mid ahay naafada gobolka Togdheer xafladan ballaaran ee la isuuri naafada egoolayaasha iyo xoriyaaminta ay isugu yimaadeen dhammaan dad ka soo qayb galay waan salaamaya ee madaxda gobolka ay ka joogtaba laba qodob baan ka hadlayaa qura hada qodob waxa weey naafada gobolka Togdheer cidii kale ee gobolka ka tirsan waxba loo qabtaa laakiin naafada meel ay gasho iyo meel ay wax ku barato midna looma sameeyo 5,000 oo iskuul baa laga sameeyaa iskuuladaas waxay cid waxba kuma dhigato marka waxaan ku codsanayaa dawladda Soomaaliland inay marka hore u sameyso xarun naafadu leedahay gobolka Togdheer mid labaad dastuurka Soomaaliland waxa ku jira qodob ah qofka naafada ah ma shaqeyn karo kaana waxaan ku codsanayaa madaxweynaha iyo baarlamaanka waa in qodobka laga saaro dastuurka Soomaaliland waayo naafada Soomaaliland dadka intiisa badan baa naafa hadii la yiraahdo ma shaqeyn karaan oo kama shaqeyn karaan marka Soomaaliland ma inta cagaha qabta una caqabada afarteeda lixaad u dhayeeyay baa shaqooyinka wadanka xaq u yeelanaysa marka madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa iyo baarlamaankaba inay ka saaraan qodobka dastuurka ku jira naafada Soomaaliland qof naafa ah kama shaqeyn karo waa in laga saaraa naafada wixii shaqeyn karaya shaqooyinka la galiya oo laga shaqaysiiya halkan waxa fadhiya naafo badan oo xoogsan karaya hadii ay amal helaan laakiin waxa dabray sharciga Soomaaliland ayaa dabray oo diiday marka Soomaaliland inteeda kalena kiina foobayaan shaqo la geeyay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweynaha wasiirada baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in si dhaqso ah looga dhiso gobolka Togdheer xarun naafadu leedahay oo ama wax ku barato loo sameeyo. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.